daawadayaal qaybtan waa qaybtii labaad iyo warbixinada dhinaca diblomaasiyadda ee Horfadhi Media waa Arbaca 2018 waa markale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinada dhinaca diblomaasiyadda xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ka soo degay magaalada Islamabad ee xarunta dalkaasi Pakistan ku dhawaad 2 sanadood oo dalalka Mareykanka iyo Pakistan uu xurguf siyaasadeed oo adag ay u dhaxaysay sarkaalka ugu sarreeya diblomaasiyadda Mareykanka Mr Pompeo oo isagu inta badan qaata talaabooyin adag oo ah dhinaca ku dhiirasho iyo ku dhac dhinaca inuu gaaro go'aamo siyaasadeed oo dalka Mareykanka uu ugu soo jiidayo caalamka ayaa haatan waxa uu ka soo degay magaalada Islamabad iyadoo booqashadan ahayd mid aan la filaynin kadib markii ay toddobaadkii hore aan ahayd markii dalalka ay hadallo adag isdhaafsadeen maalinnimadii xaddiina ahayd kolkii qaybtii ugu dambeysay dhaqaalaha Mareykanka uu sii jiray dalkaasi Pakistan ciidamadiisa qalabka sida uu gooyay ama joojiyay Mr Pompeo ayaa booqasho hal maalin ku joogi doona magaalada Islamabad ka hor intaan uusan lugtiisa labaad dhigin isla dalka isaguna koonfurta Asia ku yaala ee Hindiya ee dariska la dalkaas isla markaana ay cadowga yihiin magaalada Delhi uu tagi doono halkaan oo saraakiisha sarsare iyo madaxda dalkaasi Hindiya iyagana ku qaabili doono waxa la sugayaa in kulanka uu haatan la leeyahay ra'iisul wasaaraha cusub Imran Khan iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi ay noqdaan kuwa muradal oo markaas ugu yaraan ay dalalku ka wada hadlaan arrimaha adag ee wada dhaxeeya kamid tahay dagaalka adag ee Mareykanka uu doonayo inuu la galo kooxda Taliban-ta Pakistan iyo in Pakistan ay ka caawiso wada hadal iyo is-afgarasho rasmi ah oo dalka Mareykanku uu ka gaaro ama uu ka helo heshiis si uu uga lagu baxo dagaalkan culus Taliban-inta ayaa ka dagaalamaya dalkaasi Afghanistan gaar ahaan kuwa loo yaqaan qunyar socodka Mr Pompeo ayaa waxa uu wajahaya hase yeeshee caro xoogan oo taala magaalada Islamabad iyadoo oo arintu ay tahay mid aad iyo aad u adag labada dal maadaama talaabooyinkii ugu dambeeyay ee uu qaaday madaxweyne Donald Trump iyo xukuumaddiisu ay hayaan kuwa dabka sii huriyay ama cirka ku sii shareeray khilaafka labada dal u dhaxeeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Pakistan ayaa ninka la yiraahdo Maxamuud Qurayshi ayaa horay wuxuu u sheegay in dawladdiisu ay kaliya ay ku qanacdo ayuu yiri wax u eg buuri in labada dal ay si masa ah ay wax u wada qaybsadaan isla markaana ay u wada hadlaan balse aysan haba yaraatee Pakistaaniyiintu aysan dhageysan doonin waxa uu ugu yeeray wax loo soo qoro ama loo soo xariiqo wuxuuna sheegay in habdhaqanka Mareykanka looga baahan yahay ay tahay inuu gebi ahaanba bedelo luqadaha uu kula hadlayo dalka Pakistan iyo inuusan Pakistan waxyaalaha qaarkood u yeerin hase yeeshee Mareykanka ayaa doonaya isaguna inuu lacagta bilaayiinta dollar ee uu siinayay dalkaasi gaar ahaan ciidamadiisa qalabka sida iyo taageerada xoogan ee uu bixinayo ay yihiin buuli kuwa u baahan ayuu yiri la xisaabtan iyo in Mareykanka wax loogu taro inteena ka bixin arinta Mareykanka dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo naadir ah isla markaana u eg inuu miro dhali karo ayaa ka dhex bilowday dalalka Turkiga iyo Mareykanka oo bariyihii u dambeeyay xaaladooda u xumeed wasiirka difaaca dalkaasi Turkiga Hulusi Akar ayaa la kulmay ergeyga cusub ee dawladda Mareykanka ku soo magacawday arrimaha Syria James Jeffrey oo asagu horay u ahaa jiray safiir waqti dheer dalka Mareykanka u jooga Turkiga isla markaana xiriir dhow la leh dalkaasi Turkiga ama aad u yaqaan dhaqanka dalkaasi Turkiga maadaama uu in badan ka shaqeynayay labadan mas'uul ayaa waxay ku kulmeen magaalada Ankara oo gaaray James Jeffrey si uu maalinimada siyaasadii ee shalay ahayd si uu uga hadlo dagaalka ay dawladda Syria isku diyaarinayso inay ku qaado gobolka Idlib iyo in laga wada hadlo kooxda dhaqdhaqaaqa PKK xiriirka la leh ee YPG loo yaqaan ama People's Protection Unit la yiraahdo ee fadhida dalkaasi Syria isla markaana khatarta ku ah jiritaanka dalkaasi Turkiga sida ay Turkidu sheegayaan sidoo kale wuxuu lugtiisa dhigi doonaa dalalka Israa'iil iyo Jordan ka hor intuusan ka warbixin Turkiga waxa ay war qoraal oo soo saaray General Hulusi Akar wasiirka difaaca Turkigu wuxuu sheegay in la isku afkartay in la khafiifiyo dagaalka dhinaca media ama warbaahinta ee labada dal isdhaafsanayaan isla markaana Turkigu wuxuu hordhigay kol kale Mareykanka in uusan ku qanacsanayn dhaqdhaqaaqa YPG ee halkaasi ay ka wadaan iyo taageerada sii socotay Mareykanka iyo sidoo kale arinta ku saabsan dhinaca dhaqaalaha inkasta oo uu sheegay wasiirka difaacu inuu san asagu arrimaha siyaasadda aad uga hadlin ergeyga haddana ergeyga ayaa sheegay in Mareykanka iyo Turkigu aysan kala maarmi doonin wuxuuna James Jeffrey sheegay in marka uu ku noqdo Washington uu madaxweynaha dalkaasi Mareykanka gaarsiin doono fariimaha uu soo qaaday dhamaantood halkan nagala socotaan waa Horfadhi Media ka gal caalamka oo dhan daawadayaasha qiimaha leh ayaan idin haynaaye haatan inteena wali wararka Mareykanka ka bixin ayaa bug cusub mar walba waxa soo baxaya sheekooyin yaab leh oo ku saabsan arrimaha
dalkaasi Mareykanka ka soconaya siyaasaddiisa adkaatay iyo madaxweynaha la soo baxay markaasi dardarta yaab kale si kastaba ha noqotee arrimahan waxay u soo shacbaxayaan baa la leeyahay erey bixin cusub oo ay warbaahinta Mareykanku u bixisay sababta xogaha lixaad kale ee aqalka cad loo helayo ayaa waxay ugu yeedhay in ay wacad ku marayaan shaqaalaha madaxweynaha ka ag dhow inay badbaadiyaan dalka Mareykanka sida daraadeedna aysan qarin tabaha madaxweyne Trump iyo qaabka cusub ee Mareykanka doonayay inuu u hogaamiyo sidaas hadal u eg ama erey bixintaas u eg ayay u sameeyeen warbaahintu sababta madaxweynaha loogu raad joogo ama loogu raad taagan yahay haatan waxa soo baxday in madaxweynaha dalkaasi Mareykanka uu bishii Abriil ee sanadkii hore qorsheeyay isla markaana hindisay in la qaarajiyo nafta laga jaro madaxweynaha dalkaasi Syria Bashar al-Assad waxaa la sheegay in shir amniga qaranka ah oo uu fadhiyay inta ay fadhiyeen madaxda inta badan dalka Mareykanka ugu aliyadsan ama ugu sareeya kolka ay timaado arrimaha amniga qaranku uu madaxweynuhu soo hordhigay qorshe yaab leh oo uu yiri waxaanu ka taqalusi karnaa isla markaana waxaanu qaaraji karnaa Assad si dhibaatada dalkaasi Syria loo soo afjaro inkastoo dadka qaarkood ay u arkeen arrintaasi mid kamid ah xalalka dalkaasi Syria mid soo dedeji kareysay haddana waxaa la sheegay in arrinta madaxweynuhu uu gaar uga codsaday xogayaha difaaca dalkaasi Mareykanka James Mattis oo asagu uu sheegay in arrintaasi ay tahay inuu ka fikiro balse waxaa la yaab noqotay jawaabta uu ka helay Mr. Mattis ayaa ku yiri madaxweyne waa macquul arrintaas laakiin waxa ka fiican inaynan isaga shakhsiyan weerarin balse aynu weeqno awoodiisa cirka iyo tiisa difaaca hase yeeshee arrintaas intaas kuma joogsan baa leeyahay Mr. Mattis wuxuu arrintii la sheergareeyay ama uu la wadaagay baa qaar kamid ah asxaabta wuxuuna ku tilmaamay qorshaha madaxweynaha Donald Trump iyo habdhaqankiisa mid la mid ah aqliga caruurta dugsiga hoose dhexe dhigta ayuu sheegay ama fasalka shanaad ee iskuulka hoose dhexe iyo lixaad caruurta ku jirta siday u fakraan ayuu yiri Mr. Trump arrintaas ayaa waxay ku qoran tahay buugga hadeer isaguna uu gacanta ka jarayo isla markaana toddobaadkan soo baxaya oo ay Washington Post qayb ka mid ah heshay oo la yiraahdo fear ama cabsi waa cabsida aqalka cad ee Donald Trump ayaa buugga lagu magacaabaa iyadoo oo uu qoray rugcada markaasi wariye ah oo ahaa ninkii sheekadii loo jiray ama fadeexadii loo jiray Watergate wax ka qoray oo leeyahay ama soof shac saaray oo leeyahay Bob Woodward ayaa arrintan wuxuu ka soo xiganaya xubno badan oo la shaqeynayay madaxweynaha oo ka mid yahay ninka qora ama u qaabilsanaa madaxweynaha Mareykanka qudbooyinka iyo hadallada uu doonayay inuu publica ama dadka shacabka u jeediyo waxaa sidoo kale sheekooyinka yaab kale kamid ah ee arrintaas ka dhacay in khilaaf xooggan iyo isfahan darro iyo wada shaqeyn la'aan baahsan ay ka dhaxayso xubnaha madaxweynaha la taliyaasha ah waliba kamid ah dadka Mareykanka ugu aqoonta badan qaarkoodna ay shaqada ka tageen qaarkoodna ay inay ka tagaan qarka u saaran yihiin sida agaasimaha guud aqalka cad General John Kelly ayaa laga soo xigtay in uu yiri garaamino sababta aan ula shaqeynano qof doqona sidoo kale wuxuu inta ku daray baa leeyahay in garamayno sababta aan u joogno magaaladan waalan ama meeshan waalan ayuu isticmaala hase yeeshee John Kelly ayaa sheegay inuusan weligii mar la weydiiyay ayuu arrintan ama arrimahan buugga xambaarsan yahay wuxuu yiri weligii doqon uguma yeedhin madaxweynaha si kastaba ha noqotee arrinta ayaa la sheegay in laga soo xaday waraaqo badan iyo xogo badan oo teedsanaa miiska madaxweynaha oo ay loo soo gacan galiyay baa leeyahay dadka markaasi ama ninka arrinta qoray uu ka mid yahay Woodward waxa uu sheegay in xataa ay meesha ku qoran tahay in waxyaalaha lagu qanci doono waqooyiga Korea ay ka mid noqon doonto in Mareykanka uu xiriirka dhinaca dhaqaalaha u gooyo koonfurta Korea taasoo miiska saaran sida uu sheegayo buuggan cusub ama ku qoran oo ay nuqul ka mid ah si akhrisadeen warbaahintu gaar ahaan wargeyska afka dheer ee la yiraahdo Washington Post sida waxyaalaha kale ee yaab kale ama sheekooyinka kale buuggan xambaarsan yahay waxa kamid ah in lawyer-ka ama qareenka gaarka ah ee madaxweynaha ee arrintiisa gacanta ku haya uu ugu yeeray ama uu madaxweynaha uu ka codsaday inuu haba yaraatay uusan hor fadhiisan Robert Mueller hor fadhiisto ninka baaraya arrimihii u dhaxeeyay ololihii Mr. Trump iyo Ruushka uu u diyaar garoobo in maxkamadda la saaro wuxuu sheegay buu yiri inuu arrintaasi iska weynaysiiyay oo uu yiri haddaan doono waan hor fadhiisanayaa wuxuuna ku tilmaamay nin aan la fahmi karin wuxuuna yiri maaha wax qareen loo noqdo dadka kale ee aflagaadada xooggan iyo xiriir xumada ay soo kala food saartay madaxweynaha waxa kamid ah madaxa ganacsiga Wilbur Ross
oo la anfariiray baa layidhi maalin walba liis buuxa oo madaxweynuhu soo gudbiyo oo ay tahay in dalal hor leh cunaqabatayn la saaro islamarkaana ka digay inay arrintan god ku ridi doonto xulafada Mareykanka dadka kale sida weyn ay isku hayaan madaxweynaha isaguna uu aflagaadada weyn u geystay waxaa kamid ah ninka madaxa cadaaladda dalkaas Mareykanka waa waaxda cadaaladda ninka madaxda waa ama wasiirka cadaaladda si kalaba u dheh Jeff Sessions oo ku tilmaamay inuu yahay nin maskaxiyan dhintay arrimahaas iyo arrimo yaab leh oo kale ayaa buugan u xambaarsan yahay dawladda qiimaha leh kii John Kerry baa isaguna soo socda iyo waxyaalihii hore Mareykan uga dhacay wararka caalamka iyo ku xidhnaantooda ayaana wax weyn noo tari doonta inaynu ogaano xogaha soo dhan wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Britain ayaa kolkii ugu horeysay wuxuu cad ku maray in dawladda Britain aysan ka hadhi doonin ilaa maxkamad cadaalad la hor keeno wuxuu ugu yeeray qabanqaabiyaashii iyo diyaarayaashii ayuu yiri dambiga dagaal ee ka dhana dadka wuxuu yiri muslimiinta ee Rohingya ee dalkaasi Burma loogu geystay Jeremy Hunt oo hadal u jeedinayay aqalka la yiraahdo the House of Commons ee dalkaasi Britain ayaa wuxuu ka jawaabay su'aalo talantaale ah oo uga imaanaya xildhibaanada xisbiga shaqaalaha ama Labour-ka ee dalkaasi Britain xildhibaanka la yiraahdo Stephen Tiwick ayaa ugu baaqay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Britain in uu cadeeyo doorka ay ka taagan tahay dawladdiisu in maxkamadda la yiraahdo International Criminal Court ama ICC la hor keeno xubnahaas iyo sida ay u tahay inay dawladdu u bacsato dadkii ka dambeeyay dambiyada kamida kuwii ugu xumaa ee qarnigan hatan dhacay wasiirka arintaas aan si leexleexleeba uga leexleexan ayaa wuxuu isticmaalay wasiirku hadalkii ugu adkaa ee wali dal reer galbeed arintaas isticmaalo wuxuu yiri isirsifaynta halkaas ka dhacday waa mid iska cad taasuna ma noqon doonto mid ciqaab la'aan la muto ama ciqaab la'aan laga fakado wuxuu yiri dambiilayaashu waa in la hor keeno maxkamadda cadaaladda ee dambiyada dagaalka adduunka Britain waxay wacad ku maraysaa inay qaramada midoobay ay u qabato shir heer wasiira 15 dal ee arintaas isla markaana lagu ansixiyo in si dhaba loo horgeeyo maxkamadda dambiyada dagaalka xubnihi arintaas ka dambeeyay dadka la doondoonaya haatan waxa kamida taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida dalkaasi Burma General Min Aung Hlaing iyo xubno kale waxa wali soconaya baaritaanada isdaba jooga ee adduunka soo saarayo warbixintii ugu dambeysay ayaa waxa soo saaray ururka dalkaasi Canada fadhigiisa uu yahay loo yaqaan Ontario International Development Agency oo ayda loo soo gaabiyo waxay sheegeen in dadka dhintay ay gaarayaan dadka muslimiinta halkaas lagu laayay ay gaarayaan muddo 29 maalmood 23962 ayaga oo 881 xubnood ama qof ku kala duwanaaday ururka dhaqaatiirta aan xuduud lahayn oo iyagu sheegay in ay yihiin dadka halkaas ku dhintay dad gaaraya 24440 ruux si kastaba ha noqotee dunida oo dhan ayaa ku baaqasa in sida ugu dhaqsaha badan maxkamad loo soo taago dalkaasi Myanmar dadka iyo waliba mas'uuliyiinta dawladda ee naxariis darrada xoogan halkaas ka wada daawadayaasha qiimaha leh warbixinada faafinta warbixinaha iyo gaarsiinta asxaabteena waxa xaqiina amana